shirweynahan dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee ku diray degmada Luuq odayaasha dhaqanka saddexda beelood mudanayaasha kale ee sida sharafta leh looga cazumay dhamaantiinba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaynaa allihiina waafajiyey inaynu isugu nimaadno maanta iyo maalmihii la soo dhaafayba degmada Doolow annagoo gudanayna waajibaad ka mid ah waajibaadka ilaahay uu addoomadan u abuuray oo ah khilaaf kastoo dhaco in nabadu ay ka dambayso waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Doolow oo dabcan intii ergadii ka timid degmada Luuq ee saddexda beelood ahayd ilaa maalintay yimaadeen ilaa iyo maanta oo annaguna aan goobjoogga nahay u taagnaa har iyo habeenba sidii ay walaalaha degmada Luuq dirirtu ku dhaxmartay nabad ay u gaari lahaayeen asaga iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland mudane Maxamuud Siidaadan oo maalintii colaadan ay dhacday waliba si gaar ah u taabanaysay kulankii saddexaad ee dib u heshiisiinay si ay dadkaas maslaxa u gaaraan intaba dhex taagnaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii shaqaaqadii 5 bisha ka dhacday degmada Luuq ku soo baxay ugu horeeyay xildhibaanada lahaa nabadoonnada lahaa oo iyana aad u dadaalay inkastoo gadaashood dhibaatooyin aan mudnayn inay dadkeena soo gaadhaa ay soo gaartay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha guddiga mudane Bood oo waqti badan geliyay isku haynta guddigeena 25 ah guud ahaanba iyo maslaxadan maanta loo fadhiyo inay halkan soo gaarto waxaan si aad uga xumahay daradna waan sheegay dadkan iga hor muuqda waa kuwii shalay wada noolaa maantana wada nool berrina wada noolaan doono waxaan si guud u habaaraynaa kuwii dhibaatada intaan la eg dadkeenna baday hooyooyinkeenna ogoonteeyey maatideenna bannaanka geeyey dadkan walaalaha soddaha iyo seediga ahaana mushkilada intaa la eg dhex dhigay kuwa nooloo dembigaas naga galay ilaahay ummadda horteedana ha idinku ceebeeyo aakhirana melaadan ogeyn allah idin geeyo kuwii fidnada bilaabay har iyo habeen u diida dadkeena inay nabad ku noolaadaan inta dhintay meeshay tegayaan ilaahay baa og wax kastoo la soo wado wax kastoo la soo sheego dadkan reer Luuq bay ahaayeen abti iyo aysin sodah iyo seedi weeye ha yeeshee waxaa dadkan isku dirsaday kuwa sunnadoodu ay waaweyn tahay muuqoodu uu og yahay inay nabadoonna iyo akhyaar yihiin qolofkooda gudahaana dulmiga ka shaqeeyo waxaa isku dirsaday dadkan oo ka shaqeeya inay fidna dhex gasho kuwa koorar u soo xirtay karabaatina u soo xirtay dhiigga iyo mansabka iyo dadkan walaalaha wada nool inay darajo iyo mansab ku gaaraan waxaa kaloo dadkan isku dirsaday walaalaha ehelka aan kala maarmaynin kuwa markay nala joogaan iska keen dhigaayo inay muslimnimada naga xigaan ayagu ay islaam yihiin markay dadkeenna ka dhaqaaqaanna nagu tilmaamay inaynu gaalannahay waxaan ogsoonnahay intaasoo dhanoo la isu geeyey inay reer Luuq maanta hooyooyinkeenna asay u wada saareen ilmaheennii wada ogoonteeyeen colaad aan weligeed laga baaqsanaynin taariikhda Luuq iyo gobolka Gadab aanan ka dhicin inay degmadaas ka geysteen dadkan waa wada noolaayeen khaladaad waa dhici jiray qofna waa la iska dili jiray waana laga heshiin jiray colaadan inay intan soo gaarto saddex qodob asal u ah waxaad moodaa dadkii aqliga cilmiga iyo waxgaradka ah inay Luuq oo dhanba ka madheen midiba uusan ku noolayn waxaa kaloo jiro kuwa ku naaxay waa ku celinaya haddana aan diyaar u ahayn nabadan inay dhaca ka qabtaan rabo magac iyo maal inay ku yeeshaan midab kastaba ha yeeshaan waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala aniga iyo inteennan guddiga ah iyo inta kaleba wallaahi waxay naga tahay lilaahi markaan wada hadlaynay markaan showraynay markaan go'aanadan soo saaraynay intanadan qaar baa xilal hayo oo maanta mansab haysto inteenna kalena dadkan dhiigooda magac iyo sharaf iyo jaakada inaan u talanno oo hal lagu arko hal lagu maqlo ha lagaa sheego Doolow buu tagay inaanan u imaanin oo naga tahay dareen na wada sito guddigeenba waan aaminsanahay inaan dembi guud wada galnay ilaahay dhamaanteen subxaanahu wa tacaala ha naafiyo ma kala maarmayno kala tagi mayno sida walaalkay Bood uu sheegay kuwa aaminsan shirkaar markuu halkan ku dhamaado diyaaradaan raacaynaayo war waxaad wax ku tahay waa dadkaaga waxaad karaamo ku yeelanaysa waa dadkaaga waxaad sharaf ku yeelanaysa waa dadkaada masaaliix adduun iyo aakhiro wanaaga adoo raadinayo haddaad u dhibatay diinta noo sheegtay jannaad gelaysaa guddigeennu waxaan u taagannahay wixii khaldamay ilaahay baa naga khalday oo naga halaabay haddaan wax saxaynaa inteennan halkan fadhido absidii wadaadada ay noo sheegayaan qulubteenna ha gasho dadkeennana aan xambaarno oo fariintaa gaarsiino Luuq waa naga badan tahay annagoo dhan waana deeqdaa reer Gadoo dhan haddii la keeno degmadaasu waa ka badan tahay dhulka la isku laynayo deegaanka la isku dirirayo waan ognahay oo maanta iyo berri dambe in la dego deegaan uma aha shaydaan baa isku keena dirsaday ilaahay idinkii waxaan u taagannahay wax allaale wixii khaldamay inaan saxno annagoo idin kaashanayna rabbina kaashanayna dadka naga dambeeyo ehelka tolkana kaashanayno inaan masaaliixdii dadkeena lagu yaqaanay aan ka shaqayno kuwa u taagan weli u hanqaltaagayaan annagoo wada jira iska qabanno isla xisaabtan dhaba wada noolaasho dhaba si aysan colaadan u soo noqonin waa inaan helnaa madal furan oo ay reer Luuq isku xisaabin doonaan mustaqbalka oo ay yiraahdaan maxay Luuq u degi weyday yaa sabab u ah degmadaas inay degi weydo yaa sabab u ah dadkeeda inay maalin walba qaxaan haddaan isla xisaabtan dhaba
helin oo intannadu aan isla xisaabtamin keenna gar daranna aanan cunaha qabanin kan gar talana aan ugu kaalmaynin waxaan dhoodhoobayno dhan ba ilaahay garabkeennaa gale inay wax naga khaldamaan waa laga yaabaa